haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waa weyneyd yaan gadaal ka geli. kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada qaar ka mid ah ballamihii uu qaaday madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano ka hor markii uu u tartamayay xilka madaxtinimada ee dalka. muddo 4 sano ah inay ka hormarayso dowladda Afrika waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ciribtirno. afar sano joogaya mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo oo la yiraahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah dowladdan waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin. waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka mas'uula annaga ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino. waxaana saaran oo ay tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno. aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay. aniga ciidanka haddaan isku halleen waayey Soomaaliyeed oo aan tababaran waay 4 sano waa inta ugu sahlan ogow maxaa adiga nabadgelyo guud iyo shacab guud nabadgelyadiisa xagee ka keenaysaa adigii baaba isku halleen waay ciidankii Soomaaliyeed. waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah ballamihii ugu waaweynay oo qaaday madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo wax ka hirgalena ma jiraan dhammaan ballamihii uu qaaday markii uu u tartamayay xilka madaxtinimada dalka 4 sano ka hor.